waxay xadeen laptop ama kombiyuutarka gacanta laakiinse waxay kala kulmeen gudaha kombiyuutarkaasi wax aad uga nixiyay. waxay qaateen go'aan cabsi leh iyagoo ku dhaqaaqay inay u gudbiyaan naftoodana horgeeyaan booliska kombiyuutarkaasina u gudbiyaan loona qabto ninka kombiyuutarkaasi iska lahaa. ma rumaysan kartid waxa uu ku xukumay qaadigii maxkamaddu kadib markii uu daawaday kombiyuutarka waxa ku dhex jiray. maalin ka mid a maalmaha ayaa laba tuug qorsheeyeen inay xadaan guri ka mid a guryaha. waxay sugeen intii uu ka soo baxayay ninkii guriga deganaa, kadibna way u daateen gurigii waxayna xadeen dhammaan alaabihii qaaliga ahaa ee guriga dhex yaallay. labadaas tuug alaabta qaaliga ee ay xadeen waxaa ka mid ahaa laptop. markii ay dhammaysteen hawshii xaditaanka ahayd waxay ku guulaysteen labadii tuug in ay cararaan iyadoo aysan cidna dareemin. markii ay ku laabteen meeshii ay isku qarin jireen, mid ka mid a ayaga ayaa waxa uu furay kombiyuutarka kadibna waxa uu ku arkay wax uu la amakaagay. markaas ayaa waxa uu dareemay naxdin aad u daran wixii uu ku arkay kombiyuutarkaas. waxaa kombiyuutarka ka buuxay sawirro iyo muuqaallo ciyaalo yaryar ah oo qaaqaawan oo ficillo xunxun lagu samaynayo. waxay ogaadeen labadii tuug in ninkanu yahay nin khatar badan, kadibna waxay ku sameeyeen baaritaan dhammaystiran ninkan. waxay gudaha u galeen iimeyladiisii waxayna arkeen inuu iska dhigi jiray ilmo yar oo 14 jir ah si uu ula sheekaysto ciyaalka yaryarka ee markaas soo qaangaaraya ama kuwa da'da yarba. markii uu mid ka mid a carruurta saaxiib la noqdo ayuu guriga keeni jiray kadibna waa uu ku xadgudbi jiray. waxay ogaadeen labadii tuug inuu ficilada foosha xun kula kacay dhowr ka mid a carruur ka hoosaysa da'da qaangaarka. waxa uuna kadibna ku goodin jiray haddii ay damcaan inay sheegaan inuu sawirradooda ku faafin doono baraha bulshada iyo internetka. carruurtu iyaga oo dareemaya cabsi fara badan ayay qaadan jireen amaradiisa kadibna way iska aamusi jireen. labadii tuug waxay dareemeen murugo aad u daran waxa ku dhacay carruurtaas bilaa dembiga ah darteed. baaritaan ay ku sameeyeen waraaqihii uu dirayay ayay ku ogaadeen inuu dembigaas foosha xun mar kale samayn doono. wuxuu isku dayay inuu la saaxiibo gabar yar oo da'da teenagerka ah ku jirta isagoo adeegsanaya xisaab been ah. 2 maalmood ka hor inta aan laga xadin kombiyuutarka ayuu ka codsaday in ay gurigiisa ku soo booqato. warqaddii ay ugu soo jawaab celisayna waxa ay ahayd in ay mar dhow gurigiisa soo booqan doonto. labadii tuug waxa ay dareemeen naxdin aad u daran waxayna garan waayeen cabsi darteed waxa ay sameeyaan. waxa ugu horreeyay ee ay ku fakareen waxa uu ahaa sidii ay uga badbaadin lahaayeen gabadhaas yarta ah ninkaas xanuunsan ee mujrimka ah. si ay u badbaadiyaan gabadhana waa inay kombiyuutarka ku wareejiyaan booliska. sidoo kale booliskuna waxay si degdeg ah ku xiri doonaan labadaas tuug maxaa yeelay waxay soo xadeen kombiyuutarka. waxaana dhici karta inaan la rumaysan kelmad kasta oo ay dhahaan labadaas tuug, waayo tuugu aragtida bulshada dhexdeeda waxa uu ka yahay qof aan la rumaysan karin laguna kalsoonaan karin. waxaas oo dhan oo jira haddana labadii tuug waxa ay go'aansadeen inay naftooda horaan iyo xorriyadoodaba sida ay gabadhaas yarta ah u badbaadiyaan. laptopkii waxay farta ka saareen ciidanka booliska waxayna u sheegeen inay soo xadeen oo ay falkaas geysteen. ma aysan kala jeclayn labadan tuug waxa ku dhici kara xitaa haddii lagu xukumo xabsi abadiyan ah oo aysan weligood ka soo baxayn. waxa kaliya ay doonayeen waxa ay ahayd in ninka mujrimka ah si degdeg ah lagu qabto sidii gabadhaas yarta loo badbaadiyo. nasiib wanaag ciidankii waxa ay rumaysteen waxa ay dhaheen labadaas tuug kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen kombiyuutarkii waxayna gacanta ku soo dhigeen ninkii kombiyuutarka lahaa intaysan gabadhu tagin gurigiisa. iyadoo ay sabab u tahay geesinimada labadan tuug ayaa uu naxariistay garsoorihii maxkamaddu. wuxuu diiday inuu ku xukumo xukun adag, sidoo kale waxa uu diiday in la geeyo xabsiga oo la xiro. kaliya waxaa lagu xukumay shaqooyin volunteer ah ama lacag la'aan ay ku shaqaynayaan muddo 12 bilood ah. waxaana sabab u ahayd nafuritaanka ay u sameeyeen wax walba si ay gabadhaas yarta ah u badbaadiyaan ee aysan garanayn. markasta dooro go'aanka ugu saxsan waxa aad ka badbaadaysaa ugu dambayn in aad shalaydid ama aad ka qowmamootid. muuqaalkan waxaa soo diyaariyay anigoo ah Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif. meel kasta aad nagala socotid Facebook iyo YouTube like-ta iyo follow-da iyo subscribe-ta iyo share-ta bahana la dhaafin si aanu muuqaalo badan oo noocan oo kala idinku soo diyaarino.